halgankeenu muddo dheer buu soo socday. waxaanu nidhaahnaa halgankeenu waa qori isu dhiib ilaa dagaalkii labaad ee adduunka. dalka Ogaadeniya la yidhaahdo marra halgan la-aan marra kama dhicin. mar walba halgan baa ka socday, mar walba dagaal baa ka socday. dagaalkaas markii urur uu halganka bilaabo uu wado, duruuf kastaba ha ku timaadee waxaa suurowda in uu halgankaas ama ururkaasi uu ama liico ama uu mataqaanaa daala ku kale baa ka hooskay. inta gumaysi jiro gobannimo doona wuu jirahayaa. inta gumaysi jiro gobannimo doon wuu jirahayaa. marka halgankeenii muddada dheer saa u soo socday ee qori isu dhiibka ahaa meel aad iyo aad u fiican buu marahayaa. markaan runta idiin sheego, idinkuna waad ogtihiin oo xogaal baynu kulligeen wada nahay. ciidan ahaan meel fiican baynu maraynaa. ciidankeenu saldhig buu ku fadhiyaa. saldhiguna waxaa bulshada reer Ogaadeniya gudaha. saldhigga halgankeenu bulshada reer Ogaadeniya gudaha. ciidankii ka abuurnay bulshadii si aad iyo aad u fiican buu runtii u shaqaynayaa. waa ciidan tiro leh, tababar fiican leh, yool cad higsanaya. yoolka uu higsanaya waxa weeye in Ogaadeniya laga xoreeyo gumaysiga Ethiopia laga xoreeyo. yoolkaa marka isagoo higsanaya tababar aad u fiican buu leeyahay, tiro fiicanna wuu leeyahay, qalab ku habboon hawsha ay hayaana wuu leeyahay. sidaas daraaddeed si joogta ah ayay maalin walba goobaha dagaalka guulo aad iyo aad u ballaaran ka keenaan. markii la isbarbar dhigo gumaysiga iyo ciidamadiisa uu halkaa geeyey, ama ciidamadaasi ha noqdeen kuwii ka yimid Maqale iyo Addis Ababa iyo halkaa ka yimid ha noqdeen, ama kuwa uu dalkeena ka sameeyey ha noqdeen, ciidamada uu gumaysigu hawlgelinayo oo qadiyadda Ogaadeniya inay burburiyaan ama tirtiraan u hawlgelinayo, iyo wiilasha hortaagan ee bulshada hortaagan ee la dagaalamayso, lasma barbardhigi karo tiro ahaan iyo qalab ahaan, midna lasma hordhigi karayo. laakiin qadiyadda xaqa ah iyo geesinimada iyo tababarka wiilashaas iyo gabdhahaas ay leeyihiin aad iyo aad u sarreysaa. taasaana keentay inay guulo aad iyo aad ballaaran ay gaadheen. goob walba ciidamadeenu gobollada ay ka dagaalamahayaan, oo gobollada dalkeenu uu ka kooban yahay, oo dhammaantooda ama mid iyo laba mooy intii kale ay ka dagaalamahayaan, guulo aad iyo aad u ballaaran ayay ka gaadhaan maalin walba. gumaysigu awood kasta uu isugu geeyey. dalka Ogaadeniya waxaa jooga 9 gaas, dadka askarta ah yaqaana 9 division baa jooga dalka Ogaadeniya. 7 ilaa 9 bay ku noqdaan ciidamada jooga, oo ayna ku jirin kuwan kala dabaqooliga booliska military booliska dabaleyda ayna ku jirin. ciidamadaas waa meesha ciidamada Ethiopia waxay u qaybsan yihiin 4 qaybood. 4 qaybood ciidamada Ethiopia oo dhan qaybta ugu xoog badan Ogaadeniya joogaan. qaybtaan waxaa loo xoojiyey waxa weeye waxay ogaadeen si kasta intay yeelaan waxay ku dadaaleen inay ciidamada jabhadda inay xoog ku muquuniyaan. way ku muquunin kari waayeen. waxay qorteen ciidamo dalka ah oo iyay qoreen way ku muquunin kari waayeen. waxay hadda u jeedsadeen shacbigii reer Ogaadeniya u jeedsadeen. way ka quusteen inay ciidamada Ogaadeniya ama wiilasha naftood hurayaasha inay xoog ku muquuniyaan. way ka quusteen. waxay u jeedsadeen marka shacbigii. waad ogtihiin shacbiga reer Ogaadeniya maanta habka loola dhaqmo, dilka iyo kufsiga iyo dhaca iyo xabsiga iyo dhaqan xumida nooc kasta leh heerka ugu sarreysa ay gaadhay. shacbigiibaa lagu maskhar jabinayaa. maskhar jabin, humiliation waxaa la yidhaha. shacbigiibaa lagu maskhar jabinayaa. markii la kari waayey in qorix iyo xabad lagu muquuniyo يعني ciidamadii waxaa loo soo jeedsaday. hadda shacbigii baa loo soo jeedsaday. waana la socotaa shacbigeena maanta waxaa haysta, waad la socotaa. taaraba ku guuleysanayaan shacbigeenu wax kasta oo lagu sameeyey. shacbiga reer Ogaadeniya marna muuna isdhiibin. wax kasta oo lagu sameeyey, dhibaato kasta oo loo geysay, wuu diiday inuu isdhiibo. dadka dibadaha jooga
yaaba carbaalaadin iyo hadalla iyo laga helayaa dadka gudaha ku jira iyaga oo si kasta oo loola dagaalamayo marra haddana wax ka leexsan qadiyadii iyo mataqaanaa himiladii ummaddaas higsanaysa wax ka leexsan marra ku hadli maayaan marka runtii dhib gumaysigu wayna ahaan jirta weligood inuu gumaysigu shacbiga uu dhibaato weyn u geysto shacbiga reer ogaadeen dhibaato weyn baa lagu hayaa hase yeeshee shacbigu ma isdhiibahayo ciidamadiisuna dagaalo adag marna ka daari maayaan innaga marka waxaa laynaga rabaa sida aynu hadda ku jiraba inaynu taageero xoog leh taageerada xooggalena waxaa ugu badan midnimada yaa ugu badan innagu inaynu mid ahaano markii aynu midowno innagu oo innaga mooyahay ciddii kale ina soo dhex gashaba aynu bannaanka dhigno markaasay guushu u dhowdahay marka innagu waxa weeye si fiican bay runtii aynu u soconaa jaaliyadaheenu iyo habkay u socdaan laakiin ka badan baa taageero intaa ka badan inaynu geysanaa loo baahan yahay taageero intaa aada iyo aada uga badan inaynu geysanaa loo baahan yahay oo dhinac walba leh halgankeenu runtii waddadii lagu guulaysanayay uu ku socdaa waddadii lagu guulaysanayay ayuu ku socdaa insha allahuna waynu guulaysan doonaa haddii la yidhaahdo